waddanka Holland waxa uu kamid yahay wadamada qaxootiga Soomaaliyeed ay si aad ugu soo jabeen intii colaadaha sokeeyay ka jireen dalka Soomaaliya kuwaasi oo wax la qaybsada dadka kale ee qaxootiga ah ee iyaguna ku dhaqan waddankaasi. haddaba markii ugu horeysay ayaa si dadka Soomaalida ay ula socdaan qaab nololeedka dadyowga iyo guud ahaanba sida loogu dhaqmo looguna noolaado waddankaasi Holland waxa loo sameeyay website lagu magacaabo Toosiye oo ay dadku wax kaga ogaan karaan afafka Dutchka iyo Soomaaliga. haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa waddanka Holland ooga soo diray wariyaheena Cabdiweli Ibrahim Garyare. balaaran lagu soo bandhigay barnaamijkan barta internetka ee la yiraahdo Toosiye.org oo ah mid loogu talagalay Soomaalida waddankan Holland ku nool ayaa waxa uu ka caawin doonaa qaabka ay ugu noolaanayaan dalkan iyo sida ay u heli lahaayeen warbixin la xiriira dalka ay joogaan ee Holland. waxaana barnaamijkan uu yimid kadib markii ay Soomaalida kaalinta ugu hooseysa ka gashay dhinaca waxbarashada shaqada iyo xitaa wada noolaanshaha dadka isqabay waddanka wada degan ee Soomaaliyeed. waxaana taasi keentay in dawladda Holland ay walaac xooggan ka muujisay ciribta dambe ee dadka Soomaaliyeed ee Holland. ururka midnimo oo xubno ay ka yihiin 670 qof isla markaana maskaxdii ka dambeysay barnaamijkan ayaa isagoo la kaashanaya hay'adaha Aasiya iyo Hayaan Media Development Center waxay si wada jir ah u sameeyeen boggan ku qoran labada luqadood ee Soomaaliga iyo Dutchka. munaasabada lagu soo bandhigay website-kan oo ahay mid aad u ballaaran marka loo fiiriyo baahida Soomaalida u qabto website-kan ama warshadaha Toosiye.org ayaa waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin anagoo ah ururka Soomaalida ee midnimo waxaan halkan idinku soo bandhigi doonaa website la yiraahdo sida magaca ku aragtaan Toosiye.org ama ayaa raacaysa. website-kani sida halkan idinka muuqata waa informaasi ayuu Nederlandku waa website uu ka kooban macluumaad aad u fara badan oo ah dadka Soomaalida ah ee ku nool Holland wixii ay u baahnaayeen oo dhan. waxa salaha warbixin bari dhexdiya ay wasaaradda Netherlands soo saareen baa jira oo dhowrkii sano mar la soo saaro. warbixinadaasi waxay ka warrabaan mujtamaca dalka ku nool qoomiyadaha kala duwan qoomiyad walba kaalinta ay kaga jirto horumarka dalka haday noqoto waxbarasho haday noqoto shaqo haday noqoto firfircooni ya dhinac walba. nasiib daro inagu qoomiyadina Soomaalida waxa la yiri waa ummadda ugu hooseysa wax walba marka la soo qaato. waxaanu aragnay in loo baahan yahay in la sameeyo barnaamij dadka ka caawin kara sida ay bixin lahaayeen dhibaatada haysata. sidaas awgeed waxaan sameynay mashruucan la yiraahdo Toosiye oo intiisa badan macluumaad muhiim ah bixinaya si dadku ay u qabsadaan waddankan inay wax badan marka hore ogaadaan. markaas ay wax badan ogaadaan ay markaas iyaguna ay qof wax qabsan karaan. is dan weten gemeente en Somaliërs dankzij Midnimo elkaar goed te vinden. En dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde om te beginnen en te werken aan je problemen. waxaan kaloo qabantiga sida uu sheegay ninkan aan amaan u soo jeedaa runtii isha gaara ay ku fiirshaan Soomaalida waayo waa u baahana qabantiyaasha kale inay ku daydaan ayaan rajaynaa. waxa la yiri dhalinyarada Soomaaliyeed ma helaan guriga markay joogaan caawimadii ay ku heli lahaayeen waxbarashadooda kor u qaadi lahayd. waxa la yiri waxa keenaya asbaabaha keenaya waxa kamid ah inta badidoodii sida taabalada horeba ugu soo aragnay wuxuu u badan yahay qoysaska Soomaaliyeed qoys kaliya waalid kaliya haysto inta badan hooyo kaliya haysta carruurta. Cabdiweli Ibrahim Garyare, Universal TV. الله ونحرسته وح خميستي في نمدي جمعه وسوقلي قياستي طبنكي في نمد لجودلي مجالده لجو مجعبه ملتقين سواء كفوجين مجالده لندن لبض اللي يرى الصوماليات كدي مركي لبضبا مدحة حبضي أي كهلا شيء الله ونحرسته ويلك كوباد اللي دلي وح مجلسي هي أمين أحمد إسماعيل أو تضبية تبنجرها كاسيو لبح حبضاد أي كجد عدي مدحة waxaa markaasi amiin uu ahaa inuu ku geeriyooday waa barigii jimcihii 6dii isbitaalkii la geeyay isagoo u dhintay dhaawacyadii madaxa ka soo gaaray. waxa uu ahaa 17 jir waxaana uu ahaa magaciisu Allah u naxariistay Amiin Ahmed Ismaaciil. wiilka labaad Allah u naxariistay isaguna islaax xabadahaasi ku dhintay waxa magaciisu uu ahaa Maxamed Abdi Farax oo 19 jir ahaa xabadina ay madaxa kaga dhacday laakiin isagu isla goobtaasi uu ku geeriyooday.
labada wiil ee geeriyooday allah u naxariiste amiin axmed ismaaciil iyo maxamed cabdi faarax waxa ay yihiin qaar ka mid a wiilasha Soomaaliyeed ee xabaduhu ay ku haleeleen guud ahaanba wadanka